Bismillahi Rahmaani Rahiim. Maanta waxaan soo booqanay dhismaha dugsigii ay dhisayeen gabdhaha ku bahoobay walaalaha gargaarka agoonta iyo daryeelka bulshada. Halkan aad arkaysaan waxa weeye waa qaybtii loogu talagalay inay ku dukadaan. Dugsigu wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood. qayb loogu talagalay ilmaha inay ku dukadaan waa masjid cabirkiisu yahay 10x7 weli oo sad arkaysaan weli lama dhigin shumacii iyo waxyaabihii kale. insha allahu usbuucyada soo socda ayaa la dhigi doonaa haddii ala yidhaah. qaabka uu dugsigu noqday waa qaabkaas insha allahu tacaala. waxaan leenahay ajar iyo xasanaad fara badan aan la soo koobi karin. ilaahay ha ka siiyo intii gacanta ka geysatay, gaar ahaan walaalaha ku bahoobay gargaarka agoonta oo dhiirigelin badan u sameeyey inuu heerkan soo gaaro. dugsigu insha allah wuxuu furmi doonaa isbuuca dambe. waana mahadsantihiin. halkan waa albaabkii ra'iisiga ahay oo laga gelayay. meeshaan aad arkaysaan bulkeeti ahay waa musqulo iyo meeshii lagu weyse qaadanayay. 2 musqulood, mid gabdhaha iyo mid wiilasha ah ayaa ku yaalay. labadan albaab aad arkaysaan midka midigta ahay waxa weeye waa masjidkii hadda aan arkaynay. kan ku dhagan waa dugsiga qaybta wiilasha. kan kaloo saddexaadna waa qaybta gabdhaha. waxaan ku tagi doonaa qol loogu talagalay inuu macalinku ku nasto. insha allahu backgroundka koraad ka arki doontaan soo uu dhisan yahay. qaybtan waa sayt kale. waa ka xunnahay horta dhismaha meesha laga dhisay oo dhinacyadeeda waxaa ku yaalla geeda oo yacni suurto gelinayna qaybo badan oo ka mid ah inaan si waadix u soo saarno. laakiin haddana waa kaasoo dugsiga wuxuu u muuqdaa si cajaa'ib leh. dugsiga waxaan u badinay dariishadaha si aysan loogu kululaanin. sad arkaysaan dariishadahaas faraha badan ayuu leeyahay. labadan albaab aad arkaysaan midka midigta ahay waxa weeye waa masjidkii hadda aan arkaynay. kan ku dhagan waa dugsiga qaybta wiilasha. kan kaloo saddexaadna waa qaybta gabdhaha. waxaan ku tagi doonaa qol loogu talagalay inuu macalinku ku nasto. insha allahu backgroundka koraad ka arki doontaan soo uu dhisan yahay. halkan waa albaabkii ra'iisiga ahay oo laga gelayay. meeshaan aad arkaysaan bulkeeti ahay waa musqulo iyo meeshii lagu weyse qaadanayay. 2 musqulood, mid gabdhaha iyo mid wiilasha ah ayaa ku yaalay. qaabka uu dugsigu noqday waa qaabkaas insha allahu tacaala. waxaan leenahay ajar iyo xasanaad fara badan aan la soo koobi karin. ilaahay ha ka siiyo intii gacanta ka geysatay, gaar ahaan walaalaha ku bahoobay gargaarka agoonta oo dhiirigelin badan u sameeyey inuu heerkan soo gaaro. dugsigu insha allah wuxuu furmi doonaa isbuuca dambe. waana mahadsantihiin. bismillahi Rahmaani Rahiim. maanta waxaan soo booqanay dhismaha dugsigii ay dhisayeen gabdhaha ku bahoobay walaalaha gargaarka agoonta iyo daryeelka bulshada. halkan aad arkaysaan waxa weeye waa
qaybtii loogu talagalay inay ku dukadaan. Dugsigu wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood. qayb loogu talagalay ilmaha inay ku dukadaan waa masjid cabirkiisu yahay 10x7 weli oo sadarkaysaan weli lama dhigin shumacii iyo waxyaabihii kale. insha allahu usbuucyada soo socda ayaa la dhigi doonaa haddii la yidhaaho. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. maanta taariikhdu waa 5 bisha 2022 waafaqsan 23 Ramadaan. Ilaahay ha inaga aqbalo dhamaanteenba. maanta madarasadan Abubakar Sidiiq ee agoonta ee ku taala magaalada Kismaayo. waxaan joognaa magaalada Kismaayo, xaafad la yiraahdo New Kismaayada cusub. waxaa degan dadkii ka soo qaxay laga soo celiyay xerooyinka Dhadhaab, Xagardheer, Ifo yaa degan oo nagu heeraarsan ilaa iyo meesha hadda laga dhisi doono insha Allahu tacaala. Maama Xaliimo Muuse ee ka wada hawsha bilowga ah ee xarunta weyn ee daryeelka ilmaha agoonta iyo darbijiifka ee ka qalqaalinaysa niyadeeda soo wanaagsan Allah u yeelo. anagana insha Allahu tacaala waan ku caawin doonaa iyo idinkaba insha Allahu tacaala. inta noo dhaxayso waxaa degan dadkaas qaxootiga ah waa Kismaayo. daraati waxay noo keeneen 20 xabo kitaab musaxaf ah iyo timir iyo biyo noo keeneen. maanta ay taariikhdu 5 tahay. Maama Xaliimo Muuse waxay noo keentay kitaabadan arkaysaan oo wax la isku sadaqaysto wax u wanaagsan ah. 25 kitaab, 4 kartoon oo biyihii lagu afurayay. meesha afur baa ka socdo. meesha waa xarun weyn oo agoon ah. waxaa dhigata 120 agoon ah. hadda fasax bay ku maqan yihiin. marka ururkan gargaarka agoonta horseed u tahay Maam Cuudi Yuusuf waan idinka mahadinaynaa. Allah idin barakeeyo. sadaqada soo baxsateen wayna soo gaartay. aad baan u baahneen. waxaan ka walwalsanaa 120 cunug markii 20 kitaab loo keenay oo markii soo noqdaan la siinayo intay wax kale ugu heshaa. laakiin alxamdulillah maanta 25 kale aan ugu soo biiri 45 waan haysanaa alxamdulillah rabbil caalamiin. Maama Xaliimo Muuse oo arintan soo gaarsiisan khayr Allah siiyo. inta walaala ah ee wax isku soo dardartay sadaqadaas soo baxsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinayaa inuu Ilaahay dambigeena dhaafo, inuu Ilaahay meesha ka soo baxsan bedelkooda khayr qabta Allah idin geliyo. ubadka Allah idinku xafido. waalidiintiina sadaqa jaariya Allah idinku dhigo. wax la waafaq kitaabkaas oo wanaagsan. waliba waxa siinaysan waa agoon way, waa laba ajir way. kitaabka iyo ajira iyo agoonka la siinayo. haddaan wax idin tuso labada fasal hadda ugu horeysay agoonta wax ay ku bartaan waa kuwan labadan fasal waa waqaf gabdha dhiseen muxsiniin oo sidii noo kala ah. waa aragtaan miisaskoodii iyo kuraastoodii waa kuwa insha Allah taala. waa laba fasal hadda fasax bay noogu maqan yihiin. marka insha Allah taala dhammaan waxaan ka codsanaynaa sida aad Maama Xaliimo Muuse noogu soo adeejiseen in agoontaas u soo gargaartaan. Maama Xaliimo Muuse insha Allah taala waxaan ku naqaanaa qof khayr badan oo sadaqa badan insha Allah taala. waxaa kaloo xataa halkan ka socdo oo aad loogu baahan yahay. waan tusaynaa madrasada horteeda ka socdo biyo dhaamin. dadkii ceel mala aagan ceel lagama qodo oo waa dhulkeeda dhagax way aagan. meelaha kale dadka barakacaysh ay degan way jiraan. Maama Xaliimo iyo aniga lafteeda xataa mar wax dad iyo soo dhiiban aan ka qodo. laakiin aagan biyo malaha waa dhagax way. dhulkeeda waa dhagax. biyo booyad lagu keenay dadka ay ku nool yihiin waa Ramadaan. haatan insha Allah banaanka u baxayna. waxaan idin tusaynaa si dadka rafaadka ugu jiraan biyaha arka. saakay feel soo galeen waa hal booyad waa $80. bal feelkii ugu jiraan bal aan ragno. Maama Xaliimo xataa aan raacdo insha Allah taala. wax boosiska dheh ka socdo. masaajidkan waxaa la Abubakar Sidiiq. madrasada waxaa la Abubakar Sidiiq lil aytaam. masaajidkan hadda waa la shubay, wuu shuban yahay. qaybtii uu koreysa la shubay. waa masaajid weyn oo jaamaca. masaajidkan waa wax bashaara ah. hay'ad ma dhisin, kambanina ma dhisin. waxaa dhisay dad muxsiniin ah oo sidiinoo kale ah. $100 ay soo dhiibeen, $20 ay soo dhiibeen. yaa masaajidka arkaysid iyo guryahan arkaysaan oo 12 fasal ka kooban oo xafiisyada leh oo waxaan hadda maanta la dhisay. maanta ugu dambeysay wahaantii biyaha taas waa tii hore way nagu yaraatay. ilmaha way ku yaraatay. tan baa maanta la dhisaya wahaantii labaad. sidaas waxaas arkaysaan oo sadaqa ah. waxaa baxsanayo dad muxsiniin oo sidiinoo kala. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinaynaa inta wax baxsatay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u barakeeyo. haatan waan soo baxnay banaanka oo soo baxnay. waxaan rabaa inaan idin tuso biyo dhaaminta iyo rafaadka biyaha dadka ay u qabaan insha Allah ta'ala. ila socdo. feelka hadda uu yaraaday. dadkan arkaysaan ee walaalihiina biyahana loo dhaaminayaa.
وأركيسان بويدان بيها بيها دامن ودا فيلك هاد إلا وحوجه بويدا ويقاتنا هاد بيه ورمضان وانفصحني وأركيسان بويدا سبيها أركيسان ماشي تاجن يا مالي ولي لو داميا $8 إن شاء الله وران كسر فايديستا تذكر ولا لينا عيلنا أو قدنا عندنا أو مغنين هلا صو عاون إن شاء الله تعالى ما محلم موسى نوسو ديبا وإنه كان إن شاء الله تعالى وقف خير بدن وقف خير أكون نقان وقف هبين من أوتاجن إن تذكر عاوسو إن شاء الله تعالى أنا نردو عن إيدي هنا تذكر هذا ويبحين فيلك وحويا اللي بويد كحقه يلا إلا هذا والله دامي إلا هذا وهو كواس حونسن ما لنكس والله دامية إن شاء الله تعالى وحين رجينا إن شاء الله تعالى إن السوء جيب دونتان أنا مسؤول دعينا إن شاء الله تعالى تذكر ولا لينا بيها سوء بهين وبيمعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.